بسم الله الرحمن الرحيم وانا بقر عرمدوه بقر كبيش قرحاجيسه halka waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Soomaaliland waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad u salaamayaa oo bogaadinayaa Ilaahay uga baryayaa guul iyo gobonnimo mid walba mutaystay ciidamada qaranka ee jiidooda ku sugan ee ammaanka dalka sugaya in nabadooda lagu jiifo guuleysta baan leeyahay mar walba garabkiina taageernay guuleysta baan leeyahay inta markaa ka soo noqdo qodob qulumaan maanta halkan u soo fadhiisto reerka la yiraahdo isaaq reerka la yiraahdo ducayaalkoodu laba reer buu ahaa reerka la Ibrahim Isaaq iyo reerka Cali Saciid la yiraahdo waliba Cali Saciid iyagu waxaa bay lahaayeen niman mujaahidiin oo fara badan dagaalanta reerka la yiraahdo isaaq oo reerka la yiraahdo Ibrahim Isaaq waa ducayaalkoodu dad dhibla maaha dad dagaal gala maaha dad xabad qaata maaha dad cid dila ma aha konton sano waan jiraado umaan arag weligii kontonna waa 150 dhegtaa maqashay awowgay iyo aabbahay baa ka soo gaaray weli nin reer Ibrahim Isaaq oo intuu qori qaatay qof dilay Soomaali ciduu doonaha ka noqday nin baan maqlo ninkaas laba nin buu dilay way beesha sabaro waxaan leeyahay horta marka hore sanni kala dhintay Allah oo naxariisto janna firdawsan Ilaahay uga baryayna warkaasi dhibay ka noolaan u talno war qaranku sidii ugu sugnay isku ahaa ee diintu ahayd ee dhaqanku ahaa diintu ahayd ee qaranku awoodiisa iyo maamulkiisa iyo tiradiisa ahayd ee ugu wanaagsan uu yeelo ninka uu xukuma tii odayaasha dhaqanku halkii bay noo taala anigu ninka hadda sabana walaalayaal warkaasi dhibay inoo soo noqon maayo ka nool aynu talno ka nool aynu maanta u talno waa ducayaalka reer Isaaq war way dhacday si kastaba isku dilaana way dhacdo inankii naga tagiyo dhimay inoo soo noqon maayo raqbar waa ku rageeday baa la yiri ragna way noo weligeenba arrin uguba maaha waa arrin curada weligeed soo jirtay uqaal baan wax dhameyn jirto miiska wada halka lagu dhameyn jiray war ragina ma dheere kaasiina dhaafiya ka nool aynu talno ama xeer ha inoo galo oo xeer inooga dhigay inaynu iska saasoo kale markay dhacdo kaynu isu dilayna kida bari bay dhacaysaa kastamaro nooc digi doonaa ama xeer ha noqoto ama walaal aynu miiska wadaalka wada nimaadno oo aynu ninkaasi dhibay ka nool u talno waa ducayaalkii reerka wareeraha laga ducaysto waa dad nabadda jecel waa dad macaamiisharka jecel waa dad walaalnimada jecel waa ogtihiina macaamiisharkoodu hal bishaq haddana imika saambal yar siiyo dhiigsiil reerka la yidhaahdaa dhiigsiil ninka la yidhaahdaa maanta daafaha caalamka oo dhan waxbuu ku leeyahay waxaa wixiisaa loo taabo waayo waxaasoo al-shabaab u jirto oo loo taabo waayo waa reer aan cidnaba gudub ka gelin war way dhacdaado qadacu wuu dhacaado qadarku wuu yimaadaa odayaal beenna weligeed beentano kale la dhamayn jiray war miiska waa hadalkaan isugu nimaano war reerkaas waa ducayaalka reerkay ka ducaysta war maanta ninkaan naga dilin maanta ninkaan noo soo daayay maanta walaalayaal ninkaan noo soo daayay war waxaan la hadlayaa cuqaasha samaroon haan kastaba ahaadaan ninkaan maanta noo soo daayay mag waxaan doontaana na weydiiye kaa dhintayna maanta aynu aasno kaa noolla maanta aynu talno waa idinka dheer anigu qurbaan joogaa maanta si haddaa goosha inoo furtaan beriyaad soo dhoofaya walaalayaal reerkaas waa ducayaalka reerka waa reer yar waa ducayaalka Isaaq war ishoodu ma gabato war dadka ma doontaan war cid ma dilaan war maanta miiska wadaalka kaala uqaashaan la hadlaya waxgaradkaan la hadlaya aqoonyahankaan la hadlaya siyaasigaan la hadlaya war walaalayaal oo yaanay arrintaasi idinka sii fogaan dhacdoo ninkaasi dhibayo saacadiisa dhammaantay ka nool maanta walaalayaal noo soo fadhiista oo goosha inoo fidiya horta ay goosha inoo fidiya in wada hadalo goosha inoo fidiya walaalayaal reerkaas waa ducayaalka reerka waa reer aad u wanaagsan waa reeraan haan qura oo Soomaaliyeed ciise hadday tahay iyo hawiye hadday tahay dhulbaantaanood hadday tahay reer kasta oo Soomaaliyeed ogaada hadday tahay reer kasta oo Soomaaliyeed waa reerka qura ciidan gudow sheeganay ninkay Ibrahim Isaaq u dhexmari karo waa ducayaalkeyga waa reer aad u yar war walaalayaalow maanta waxaan u taagannaha inaad nabad qaadataan inaad maanta noo soo deysaan midida daabkeedii ka haya kugashu way noo fidsan tahay waan iska baryaynaa kugasha noo fadiya aynu isu wada fadhiisanno aynu ka wada hadalno kaasi dhibaya ka nool
maanta nala badbaadiya. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.